السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dadka Soomaaliyeed meel kasta joogtaan waan idin salaamay. waa anigoo Sayid Maxamed Cabdi ah oo maanta ku sugan xafiiska shirkadda One Life headquarterkeeda ay ku yaala Sofia. runtii waxaan ka soo qayb galay shir aad muhiim u ah oo halkan ka dhacay. waxaana shirar gaar ah aan lahaa madaxda shirkadda One Life. waxyaabo runtii aad iyo aad u muhiim ah oo aad ku farxdaan runtii halkan waan kala kulanay. waxyaabihii aan ka hadalna waxaa ka mid ahay waxyaabo badan sida bulshada dadka Soomaaliyeed iyo dadka kaleba shirkadda ku jira One Life gaar ahaan sidaan wax ugu qaban lahayn yani aan hore ugu socon lahayn as a network as an inner circle maxaan anaga shirkadda kusoo kordhin karnaa leader ahaan maadaama shirkaddana loo doorto inner circle iyo dadka aan u shaqaynayna ama shirkadda aan u nahay madaxda maxaan yani shirkadda ka filan karnaa waxyaabo badan bay runtii ii sheegeen. dabcan halkan video wax walba kuma soo koobi karo laakiin waxay ii sheegeen bisha sanadka cusub January wixii ka dambeeya waxyaabo badan inay soo socdaan. muhiimadda marka waxaan rabaa walaalayaal inaan hal haqan idin sheego meel kasta aad joogtaan waxaa ogaataan dadka shirkadda ku jira ee ah dadka Soomaaliyeed waxaan runtii sameynay progress aad u wanaagsan markii la dhaho 2016 2017 2018 ayaa waxaan ku jirnaa bishii December ee ugu dambeysay ku jirnaa. waxyaabaha marka aan rabnaa waxay tahay haddii saddexdaas sano maanta aan soo saarnay liidaro badan markii la yiraahdo shirkaddani ay noqoto dhinacii bakajyada ay dadka gateen bakajyo badan ha noqoto bakajyada ugu hooseeya sida traderka iyo starterka iyo maxaa la yiraahdaa bakajyada kale ee maaragtay educationka ah sida maaragtay markii la yiraahdo pro traderka iyo tycoonka runtii dadka aad bay gateen. sidoo kale waxaa kamid ah bakajyadan gadada kuwa premiumka kamid ah oo 20,000 euro la gado waxaa aad loo gadanayay sidoo kale baakada 55,000 ah. waxyaabahan halkan u imaan marka waxaa kamid ah dadka fursadii ay shalay haysteen ma sii helayaan. jawaabtu waxay ahayd ha mar walba fursaddu way jirtaa bakajyada la gadanayay still waa helaysaan haddaad rabtiin inaad coinankii aad raadsanayseen shalay aad heshaan. sidoo kale levelada educationka haddaad rabteen levelkii koowaad waxbarashada levelkii labaad levelkii saddexaad levelkii afaraad ilaa levelka shanaad waa helaysaan. bakajyadiina waxbarashadiina waad hesheen. waxaa kaloo idin dheeraa inaad heshaan isla markaasi inaad heshaan coinankii shirkadda aad rabteen inaad ka heshaan. marka dad badan hadda waxaan maqalnay oo si qalad wax u fahmay inay shirkaddu shilimaadkeeda yareeyaan. waxaan idin sheegaynaa wax kasta sidii loogu talagalay ay ku socdaan. haddaad doonaysa inaad level kasta aad qaadato waxbarasho iyo coinanka aad shalay rabteen intaba waad heli kartaan. marka liidaro waxaa jira oo daymano ah oo meel kasta jooga maanta oo Soomaali ah ha noqoto Yurub ha noqoto wadamada kale caalamka intiisa kale Soomaaliya ha noqoto wadamada Asia ha noqoto mar walba waxaa jira liidaro daymano ah imraala ah oo mar walba idin shaqeynaya darajo fiican jooga. marka hadda waxaan rabnaa stage shalay aanu joognin waan soo gaarnay maanta maxaan soo kordhin karnaa su-aasha waa taas. marka hadda waxaan rabno waa inaan liidaro cusub soo saarno oo fresh mind ah dad yacni maskaxdooda furan tahay aqoontooda kor tahay oo maanta wax ku soo kordhin kara bulshada Soomaaliyeed haddii ay noqoto dhinacii maaragtay inay dadkii wacyigeliyaan informationka saxda inay la sheergarayaan shirkaddani One Life maaragtay networkeeda liidarada ka midka ah ha noqoto dadka cusub ee soo galaya. waxaan rabnaa dad quality leh at the same time waxyaabaha shirkadda ka hadal waxaa ka mid ah sida lagu horumarin lahaa deal shakerka. hadda deal shakerka shirkaddan waxay rabtaa inuu adduunka oo dhan ka shaqeeyo 196 waddan kastana inuu leeyahay madax u gaar ah ee mas-uulka ah barnaamijkaas. dabcan hadda waxaan raadinaynaa dadkii aqoonta lahaa ee barnaamijkaas deal shakerka ama e-commerce-ka ka shaqeyn lahaa tababarka bixin lahaa traininada dadka siin lahaa. marka haddaad tahay qof arrinkaas diyaar u ah oo ka bixi kara nala soo xiriir. waxyaabaha kale aan ka hadalna waxaa ka mid ah dabcan shirkadda suuq way imaanaysaa. jawaabtu waxaa weeye ha way imaanaysaa shirkadda laakiin waxaa ka horeysa dadka inay shirkadda lacagta ay haystaan ay ku ganacsan yihiin. marka walaal waxaan rabaa ugu dambeyn aanan idinku dheereynaynin maadaama halka shirar badan ka socdaan oo aan rabo inaan soo gabagabeeyo meel kasta aad joogtaan waxaad ogaataan shirkadda One Life xafiiskeedii headquarterkeedii wey meeshaan aan dhex taagannahay. haddaad isweydiinaysid One Life ma jirtaa One Life mar kasta waa jirtaa waana joogtaa. laakiin haddii aad rabtid liidar shirkadda kugu soo daray oo shaqadii uu kuu qabanayay shalay sidii aad ku ogeed aysan ahayn inay ku niyi jabisa ma aha. marka ku kalsoonaada shirkaddiina liidaro waxaad haysataan maanta Blue Diamond ah waxaad haysataan Inner Circle-kii waxaad haysataan GLG-gii waxaad haysataan Diamond waxaad haysataan Emerald Ruby Sapphire dhammaantood waxay diyaar idinkugu yihiin inay adinka idin shaqeeyaan. maanta waxaan leeyahay dhammaan congratulations hambalyo dadka loo soo approve gareeyay KYC-gooda ugu yaraan tiro ka badan 500 oo KYC baa approve ku sameeyay intaan halkan joogay. welina waxaa noo socda howshaas wax badan baan soo wadnaa. ujeedkana wuxuu inaan liidaro howsha nala fududeeyo inaan soo saarno. marka haddaad tahay liidar ama aad ka bixi karto shaqada One Life Network waxaan kuugu imaanaynaa meesha aad joogto. isku diyaari inaad barnaamijka training fiican aad qaadato Sapphire-kii iyo Ruby-gii iyo maxaa la yiraahdaa Emerald iyo Diamond beenankii iyo darajooyinkii shaqada waa furan tahay. anaga shaqadeena waxay noqonaysaa networking inaan xoog saarno inaan bulsho soo saarno
inaan soo saarno macaamiil shirkadda One Life isticmaasha. Anaga shaqada corporate-ka iyo maamulka business-keena maaha istaasmada our business, laakiin anaga business-keena wuxuu yahay network-ka sidaan ku horumarinahay bulshadii shirkadda isticmaali karta fahamsan at the same time shilling fiican haysata. Shaqadeena taas ay noqonaysaa. haddaad diyaar tahay we are ready. maalin wanaagsan. Bye bye.